wadno waxbad ka galiye saddexlo nin dad u dili kara waa saddexlo ambi ka cabay yaa uga dardaray waa dilay kor uu riday ku istaagaan bis celi waxay wadaan inay u socdaan weydii suurtagal maahan marka in la yiraahdo dilku waa kas marxuumka dhimanaya soo wareegtay waa fiiri hadaan fiiri u dhahay aabo dhaawac ay gaaray meel heblaan ku dhaawacmay aan dhahay kadibna waa mir dawalmay baan Xudayfi Abuukar Ahmed oo ka tirsan ciidanka daraawiishta Hirshabelle ayaa loo haystaa dilka marxuum Saciid Cali Nuur Shire iyo dhaawac culus oo uu gaarsiiyay dibana Aadan Maxamed Ibrahim oo labaduba ahaa xoogsato muruqmaal ah kadib markii eedeysanaha oo ku sugnaa bar control kuna taala duleedka magaalada Jowhar uu xabada ka dabariday labadooda kuwaasi oo saarnaa Motofaykon falkan ayaana dhacay 20kii bishii afraad 2026 eedeysanaha ayaa sababta uu xabadaha ugu riday marxuumka iyo dibanaha ku sheegay xanaaq uu ka xanaaqay in laga dardaray caag 3 litir qaad ah oo ay biyo ugu jireen kaas oo yaalay wadada dhinaceeda lamana arki karin maadaama waqtigu uu ahaa xilli aroor ah wardiga markii laga soo kicay geedka hoostiisa soo fadhiistay geedka geedweedka hoostiisa inta fadhiyo wardiga aan hay koo kalantooda gorbu fasaxay maaqan mootadu way soo gudubtay meesha markay martay caag 3 laba meeshii ilay biyaha ay ugu dhifatay way gudubtay hal baalootaa ka dawriday halkii baalootaa gaartay ku dhacday marxuumka iyo wiilka dhaawaca aniga dadkaasna walaalahay waaye wax dhibaato oo shaqo macdin ma lahan agtiidina maraysa meel dhar ma jiro kora uu riday geeda ku igu horeeya mugada ee xabada gaartay geediya ku leexday adiga xilligaas maxaa shaqo oo ku jirta xilligaas wardig laga soo agtimo ku saac wardig aligu wareejiyay asaayla ay maantay wardigina qabto laga rabo wardi madahay wardiga ana ku fadhi maxaa qasab oo keeni kara in xabad rido mid halka baalooto riday kora uu riday ku istaagaan bis celi waxay wadaan inay u socdaan weydii wada kale oo xabadahan la isku istaaji kara ma jirto miya waa jirtaa laakiin inuu gudub waa in qadtaas aniga haddaba sidoo maxkamadda ka hor qiray oo waa geystay qiraalkiisa waaye oo na qirsan yahay waxaan saraacinayaa hal yar iyo sababta uu u dilay marxuumkaas oo ku dhintay eedeysanu wuxuu hayay xilligaas waardiyo istaagayuu dhahay intii uu istaagay marxuumku mooto uu waday ayaa waxay ka dardartay eedeysanaha saddexle caag saddexlow ayay ka dardartay bis waa xanaaqay wadno waxbad ka galiye haddaba eedeysanaha aanu saddexlo nin dad u dili kara waa saddexlo ambi ka cabay yaa uga dardaray waa dilay sidoo kale waxa halkaas dhaawac ka soo gaaray muwaadin kale dibana Aadan Maxamed Ibrahim oo ku dhaawacmay dhacdadan ahaana wadihii Motofaykonta uu saarnaa marxuumka ayaa garsoorka sharaxaad ka siiyay sida ay wax u dhaceen kiiska sida u dhacay min bilow ilaa dhamaad noo sharax kiisku wuxuu dhacay soo waxay ahayd waxaan u socday beer qaybtan waqooyi magaalada lagu baxay ahayd beerta ay ku taalay marka control aan ka gudubnay oo soke waa leega fasaxay ana kaliya aan markaas controlka aan gudbay mootada kaliya waday magaciis controlka waxa la lahaa kaliya barwaaqo oo ku yaala controlka tan gudbay labada control dhaxdooda yarka marxuumkan dhimanayo oo idahay mootada iyo joojiyaan hor iyo qaad markuu iyo qaad idahayna waxa la socday ilmo asoo dhalayo 3 ah oo mid gabar ay tahay laba wiil daba socdeen wuxuu marka mid kamid ah wuxuu dhahay wiilasha aan hor iyo qaad 3 qofood meelaha mootada way qaadi kartaa odayga dhimanaya wuxuu dhahay marka iska hara idinka 3diin is soo raaca anoo hor ii qaada isku soo lagu darsada mootadii aan dhaqaajiyay meesha oo dibka ugu nugu dhacay meel 35 talaabo ama 30 talaabo u dhahay oo u jirta leeba aan ka qaaday marxuumka dhimanaya mootadii aan dhaqaajiyay geed oo controlka geeskiis oo meesha controlka laamiga qarkiisa ku yaala hoostiisa amar waxaan ka aragnay yar oo askari oo sii socdo meelaha oo baraaka oo controlka qoraasinkiisa ku taal sii socdo asigaas nalama hadin oo madaxa ululnay oo nu fasaxay adoo nu fasaxay saan u soconay markaan geedka 4 talaab 5 talaab amal aan u dirsan oo meelaha u jirsanay xabadan ka war helnay marxuumka dhimanaya oo dhahay ani xabada markaas ma dareemin laakiin yarka wadaadka dhimanaya xabadu dareemay waa joojiyay adaan joojiyay wadaadka dhimanayo waa ka dagay adoo ka dagay joogiisa ka dhacay mootada iska seexiyay marxuumka dhimanaya soo wareegtay waa fiiri hadaan fiiri oo saan ugu rogmo aniga inta neefteeda ka beesay neefta hadaan jiido intay fuuf kaleeda kadib dhiigayga arkay oo
oo daadanayo kadib wax yar aan marxuumka ka dheeraaqay moobeelaan soo baxsaday duq aabiyaan wacay aabo dhaawaca i gaaray meel heblaan ku dhaawacmay aan dhahay kadibna waa miir daboolmay baan meeshaan ku miir daboolmay kadib aan waxaan soo nigdaabilay anoo wadan isbitaal oo aalo oo meelaha turaaji igu jirto dhiig igu socdo aan soo nigdaabilay عندك سوق هذا استال كوجيس متقنا yar aan saaxiibo ahayn oo ani beerleyn oo ahay harqaan oo tala dhar aan u tiri jiray soo dul istaagay soo taagan oo macawiistiisa siibayo ay ugu mir dambayso oo macawiistiisa oo inuu u xiro oo rabo ay ugu mir dambayso jowhar waa leegu baxnaaniyay muddo 3 maalin aan jowhar joogay ileen baawur ma leegu qaadi karin dhaawaciyo wadnaha korkiisa ahaa 3 maalin aan jowhar joognay maalin afraad aan diyaarad helnay xamra la ii qaaday xamra la igu soo daaweeyay jowhar laakiin waa leegu baxnaaniyay 3 maalin adiga ma qabaal wata kugu dhacday ani hal xabaan dareensanahay inay u dhacday marxuumkana hal xaba leh labadeen saan dareemay hal xaba idii dhaxmay mootada adiga wada Soomaa controlkaas waa mari jirtay sida isku baar sida magaalada soo gal waa taqaan Soomaa waa ka saay si fiican ma sameysay marka mootada waa qaboojiyay yaraan nafasaxay maalinkaas oo dhaawacmayna subaxaas baaraha kiiska ugu qornaa ciidanka booliiska Hirshabeelle ayaa maxkamadda la wadaagay natiijada ka soo baxday baaristiisa ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Dhami Bashiir Macalin ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho oo qisaastii marxuumka ah mudane gudoomiye garsoorayaal mar haddii uu yahay eedeysanihii qiraal mar haddii aan hor keenay sawirka marxuumka mar haddii aan hor keenay ninkii la socday marxuumka oo isna la dhaawacay mar haddii eedeysanuhu si fudud dadka ku dilaayo mar haddii 3 low kaliya ayaa la iga dardaray oo dilaayo mar haddii ay ula fududahay dhiigga bini aadamka oo sidaas ula fudud yahay oo ula mid yahay tisxisanka kaga istaago sidaas oo kale uu isaga dejiyay mar haddii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo jideeyay qisaaska waxaan maxkamadda si xushmad iyo qadarin la kaga codsanaynaa in ay maxkamaddu ku qaado qodobka 434 sidoo kalena ay ku xukunto qodobka 440 baaragraaf 2 oo uu ku dhibaateeyay Aadan Maxamed Ibraahim ayna oo xukuntay magtiisa maxkamaddu waa mahadsantahay qareenka eedeysanaha oo dilkan ku tilmaamay mid aan kas ahayn ayaa maxkamadda la wadaagay qoraalka heshiis u socda ehelada labada dhinac isagoona muwakkilkiisa u codsaday in loo tixgeliyo heshiiskaasi waxa abukaato u ahay Xudayfi Abuukar Axmed mudane gudoomiye Xudayfi waxa lagu soo eedeeyay 434 xafiiska xeer ilaalinta wuxuu tilmaamay in 3 loo oo u dilay marxuum Saciid Cali Nuur intaasi waxa ka gudban sheegashada oo xafiiska xeer ilaalinta oo sheegay ma jirin baarihi kiiskana ma uusan tilmaamin dhibanihiina ma uusan tilmaamin oo marna ma uusan dhihin waxbaan ka dardaray amba waxbaan jug ka siiyay sidaas ayuuna xabadda oo igu dhiftay balse baaraha kiiska wuxuu tilmaamay in birta uu ka gudbay kadibna xabad oo ka daba riday wuxuu kaloo tilmaamay baaraha kiiska in uusan is aqoonin Saciid iyo Aadan labadaba inuusan aqoonin Xudayfi dakana gaar u qabin colaad gaar uusan u qabin wax aqoon ay isku lahaayeen aysan jirin sidaas darteed suurtagal maahan marka in la yiraahdo dilku waa kas maxaa yeelay qof aadan aqoonin amba aadan arag aan is aqoonin kontaroolkii ilaalada loogu dhiibay ee mas'uulka oo ka ahaa hadii uu gudbay sidaasna oo xabad u damcay inuu muwakkilkayga eedeysan Xudayfi oo rabay inuu kor u rido xabadii ay gaartay sidaasna ay ku dhacday inuu marxuum Saciid oo ku geeriyooday Saciid waa geeriyooday Allah u naxariisto muwakkilkayga ehelkiisa iyo asigaba waxay heshiis sharci ah la galeen oo ay kala heshiiyeen dilkii kama ahaa ay u geystay Xudayfi kuna dhintay Saciid way wada heshiiyeen diyay kala qaateen waxaan maxkamadda la wadaagayaa hadii ay ogolaato heshiiskii Xudayfi iyo dhexmaray ehelada Saciid Cali Nuur gudoomiye heshiiska sharciga ah waxa wada gaaray labada ehel odayaasha dhaqanka iyo dhammaan waliyadamka qofka dhiigiiska ay asaacafiyay waana lagu wada heshiiyay sidaas ayayna dhankooda ay uga yahay
cafis oo aynasan waxba u qabin markaan u soo gudbo eedda labaad 442 farqada labaad oo dhaawac lagu soo eedeeyay Xudayfi eheladii horeyba uga dhiibadiyada ee ehelkiisa ahay Xudayfi waxay u tageen qaraabadii iyo ehelkii oo dhaawaca oo gaaray qaraabadii ehelkii waxay ku wada ballameen dhaawaca wiilkeena gaaray markuu dhamaado oo soo daaweyno oo anba caafimaad anba si kale oo noqdo wixii ku baxo aan iskala hadleena waan iskala fariisanayna sidaas darteed waxa ka soo hormartay in maxkamadeyntii iyo mudeyntii dacwada ayaa ka soo hormartay maanta ayayna ballantu ahayd eheladiyo iswada og oo wada joogay oo rabeen inay arintaasi dhameeyaan wixii ku baxay iyo wixii gaarana ay ka wada fadhiistaan horena ay ugu ballameen in markii ay xanuunkaasi ka soo bogsooday ay ka wada heshidaan sidaas darteed waxaan maxkamadda sharafta leh u cadeynaynaa inuusan qodobada lagu soo eedeeyay qodobka 434 oo saas ku dhamaaday loogana heshiiyey diyadii iyo wixiina ay bixiyeen maxkamaddu waa maasantaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maxkamadda waxaa ka codsanaysaa maxkamadda sharafta leh waxaa ka codsaa mid lagu doomiyay inay xorriyaddeeda heshiiso maadaama wiil dhalinyaro aan fadhigan oo ka qabsoomay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa ugu dambeyn waxaa soo xiray gaashaanle dhexe Maxamed Amiin Cabdulle Aadan oo ka tirsan garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Guuleed Aadan Muuse warbaahinta qaranka Jowhar.